أريا حادي تري ما بكون دورك النبوك حاد في رسالة ما تقول دورك هالسبيس daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films oo alabaad ka dhaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha bollywoodka ee dalkaasi hindiya. barnaamijkan waxaaynu kaga hadli doonaa aktarka caanka ah ee SRK iyo Salma Khan iyo aktarada caanka ah ee Rani Mukerji. haddaba showga caan baxay ee la magac baxay Duska Dum ayaa waxaa iskale oo daadiyay aktarka caanka ah ee Salma Khan. haddaba barnaamijkan waxaa marti ugu ahaa Salma Khan jilaaga caanka ee Shah Rukh Khan, waxaana barnaamijka la daadiyay Rani Mukerji. showga markuu cabaar socday kadib ayaa waxaa meesha ka dhacday Rani ayaa soo gashay oo waxa ay sheegtay in ay Salma Khan ka rabto in uu dhalo gabadhaasina ay noqoto gabadh aad u qurux badan oo noqoto weliba hablaha reer India gabadha ugu quruxda badan. waxa ay tiri gabadhaasi markaad dhashid kadib waxa aan ku dari doonaa wiilka uu dhalay Shah Rukh Khan ee Abraham waxa uu ka mid yahay caruurta uu dhalay Shah Rukh Khan, waana wiilka ugu yar, waxaana la sheegay in uu taageero u yahay uu aad u jecel yahay Salma Khan. jacaylkaasi ka soko waxa ay sheegtay Rani, waxay tiri jacaylka uu ku jecel yahay Abraham waxaad ugu abaalgudi kardhaa adiga oo dhala gabadhaasna ku dara oo siiya, sidaasna ay ku noqdaan laba lamaane. hadalka waxaa soo galay aktarka caanka ah ee Shah Rukh Khan oo u jawaabay Rani, waxaana uu yiri gabadhan aad tiri Salma Khan ayaa dhalay waxaana lagu dari doonaa Abraham. haddii ay sidaas tahay barnaamijkan Rani ku daadihin meysida hadda kadib waxaad ku daadihin doontaa Shah Mukerji, isagoo markaasi ula jeeday guurkii Mukerji ay qabanqaabada u ahayd. labadan aktar ayaa waxay ka mid yihiin aktarada ugu awoodda badan marka ay noqoto aktarada kasoo jeeda reer India, waxaana lagu tilmaamaa in ay yihiin kuwa ugu taageerada badan marka ay noqoto dunida daafaheeda iyo gudaha dalkaasi India. xagga dhaqaalahana waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu dhaqaalaha badan oo kaalinta koowaad iyo labaad inay ku kala jiraan ayaaba suurtagala. Rani iyo Salma Khan waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad saaxiib ah, waxaana ay horey u wada daadiyeen filimkii la magac baxay Hello Brother. haddaba Rani iyo Salma Khan kaftana badan ayay horey isu dhaafsadeen showyo badan oo ay ka qayb qaateen, waxaana ka mid ah waqti ay Rani ku tiri Salma Khan waxaa maanta lagaaga fadhiya amaba caawa lagaa doonayaa waqtiga adiga aad guursanaysa amaba gabadha aad rabtid inaad guursatid nooca ay tahay inoo sheeg, inaga ayaa kuu keeni doone. iyadoo waqtigaasi la kaftamaysay jeclaysatayna in saaxiibkeed amaba qofkan ay fanka saaxiibada ku dhow yihiin oo ay wada kaftamaan in uu mar un guur yeesho oo meel uu dego ubadna uu dhalo. waxaana taas keenaysa dad badan ayaa niyadda ku haya oo isweydiinaya tolo waa goorma amaba waa tuma gabadha uu guursan doono Salma Khan oo muddo 30 sano ku dhow ku jira dhanka jiliinka welina aanan guursanin, kastoo wararka qaar ay sheegaan Salma Khan waxyaabaha waxaan oo dhan uu sameynayo waxa ay tahay in uu magaciisa kor u sii qaado oo uu taageerayaashiisa waayin ee laga yaabo inuu xaas leeyahay sida horeyba Sunudol oo ah wiilka uu dhalay dalaamadana xaaskiisa uu muddo u qarin jiray oo ay u deganeen cariga Ingiriiska. mar dambe oo laga joogo 10 sano kadibna la ogaaday in uu leeyahay xaas caruurina ay u joogto oo uu ka mid yahay wiilkiisa Karan Dol oo dhawaan la filaya inuu filimkiisi koowaad daadiyo. haddaba daawada barnaamijka aynu kaga hadlaynay Salma Khan gabadha uu dhali doono iyo wiilka Shah Rukh Khan iyo Abraham in la isku dari doono, arrintaasina ay ka dambeysay Rani Mukerji showga la magac baxay Duska Dum oo uu daadiyay Salma Khan. Shah Rukh Khanna uu marti ku ahaa barnaamijkana ay la daadiinaysa Rani. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. halka aad barnaamijka ka daawanaysaana waa saxafi films oo alaaba idinla wadaagta dhacdooyinka iyo sheekooyinka ugu xiisaha badan ee arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi India. haddaba haddaadan ka mid ahayn asxaabtii hore ugu xirnayd saxafi films, barnaamijkan aad daawanaysa like saar kadibna subscribe leh saxafi films channel taaba gambaleelka si barnaamijyada ka baxa saxafi ay joogto kuugu noqdaan. fikirka aad ka qabtid barnaamijkana waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta hoose ee loogu talagalay afkaartiina oo isku duuban oo abaada saxafina. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono daawadayaal waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.